السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال iyo marweyn meel walba waa daafaca caalamka nagala jaan qaadaysaan halkani way STV waxa la soo gaaray hadii ay goorsheeg ku beegnayd inaan idin soo tagino war wixii soo gaaray wararkaanu idin haynana waxa kamida qaar kamida bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyay magacaabista cusub ee hogaaminta hay'adaha amniga qodobada kale ee dheehan doontaan waxa kamida heshiiskii dhawaan dhaxmaray labada dhinac ee ku loolamaya siyaasadda koonfurta Suudaan ayaa la sheegay in dhameystirkiisi la isku diiday qodobadaas iyo kuwa kale ayaa wararka kamida waxaan ballan qaadayaa inaan xilka iyo mas'uuliyadda la ii doortay u gudan doono si daacadnimo iyo wadannimo mar kale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed ayaa idin la socodsiinaya qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyay magacaabista cusub ee hogaaminta hay'adaha amniga bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo waliba aqoonyahanka ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa si ay farxad ku dhaahantahay u soo dhaweeyay isbedelka lagu sameeyay ama isku shaandheynta lagu sameeyay hay'adaha amniga ee deegaanka sida ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya booliska deegaanka iyo waliba madaxa xafiiska maamulka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedelka xal lagu sameeyay ciidamada hogaaminta ugu horeeya komishanka booliska kolonelka guud abaduulaha nii booliska waxa ahayd isbedel aad u wanaagsan oo sugayna oo ku taameeyay in lagu sameeyo xagga ciidamada nii booliska yeesan u qaadan mid ah in lagu doodsooniyo iyaga laakiin waa mid dhisaysa hadafkiisa lahaa loona baahnaa in loo hagaajiyo dhankii loo socday yoolalkii la yigsanay isbedelkan dalka oo dhan ka dhacay ee bariga Afrika oo dhan saameeyay waliba geeska Afrika saameeyay waan soo dhaweynaynaa waxa kale oo si gooni ah soo dhaweynaynaa isbedelka deegaanka ku yimid xukuumadana annagu haddii aan nahay aqoonyahankii iyo muxuu ahaa bulshaweynta deegaanka waan soo dhaweynaynaa isbedelka degdega ee ku yimid hoggaanka amniga hoggaanka ciidamada amniga deegaanka haddii ay tahay hoggaaminta ciidamada gaarka ee deegaanka iyo hoggaaminta ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo hay'adaha kale ee amniga waan soo dhaweynaynaa talaabadii labaad ee la sugayay bay ahayd madaxweynuhu markuu yimaado madaxweynaha la doorto talaabadii ku xigtay waxay ahayd reformkii inuu bilowdo reformkiina madaxweynuhu runtii meel fiican buu ka bilaabay meesha hadda ma taqaanaa sida weyn loo sugayna waxay in ciidamada xaggooda maadaama systemkii hore meesha ka baxay in maxaan ku dhahdaa si degdeg ah ammaankii gacanta loogu qabto marka madaxweynuhu aad buu uga mahadsan yahay sida degdeg ah oo runtii uga bilaabay dhanka hay'adaha ammaanka oo isku shaandhayn ku sameeyay iyo magacaabis mataqaanaa cusub marka aad u soo dhaweynayna runtii magacaabista cusub mas'uuliyiintaasna waa mas'uuliyiin runtii xilkooda ka soo bixi kara anigu gaar ahaan aqoon gaar ahaan u leeyahay qayb badan oo kamid ah xilkana ilaahay iyagana ha ku astiro isbedelka cusub ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay waayo ballanqaadku ballanqaaday madaxweynaha deegaanka cusub wuxuu ballan qaaday inuu dhammaan qaab dhismeedka deegaanka si jiray inuu dib isugu habeyn doono reformna uu ka sameyn doono haddii aan yiraahdo magacaabistan lagu sameeyay ciidamada liyu booliskana waa mid aan u baahnayn aad ugu baahnayn weeyaan awal hore istifisana wareegaya inta badan ma arki jirin isbedelkuna waxa laga dareemayaa idinka laftiina wareegaya inuu isbedel dhacana meel kasta adduunka waa looga baahan yahay adduunka isbeddelaya oo uu ku dhisan yahay adduunkaas ku dhisan saa daraadeed ilaahay baan hortan ku mahadinaynaa isbeddelka keenay waayo hadduu wuxuu taagnaado dadna dhib bay dareemayaan dadna macnaha waxay dareemayaan rayn laakiin inuu adduunku wareego oo isbeddelku saa u socdo waa macnaha waa hawlaha ilaahay macnaha ayna ciidana joojin karin kullay isbeddelku ama xukunku wareegto weeye cid wal oo mataqaanaa maamul hor ahayd waa la bedeli karaa kuwa cusubna waa la keeni karaa waxaan u arkaa in ay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan waayo
maamulkii hore hadduu waxba qaban waayey oo kuwa cusub la keenay waxaan u arkaa in baalku wareegtay yahay oo kuwan ay kuwa kii hore ka sii fiicnaanayaan aragtideedu waxay la tahay in ka sii wanaagsananayaan ra'yigayga maartay haddaan cabiro magacaabistii madaxweyne mustafa uu shalay toole ku dhawaaqay mas-uuliyiinta hay'adaha amniga uu isku dhex shaandheeyey waxay ahayd mid maaragtay aad aan u soo dhoweynay xaqiiqatan waa isku shaandhayn kolley ka fiirsasho aad looga fiirsaday baan odhan karaa tusaale ahaan dadku waxay aad u hadlayaan commanderka cusub ee ciidanka liyu booliska master muuse oo bulshadu ay aad u ammaanayso aad baa loo ammaanayaa tusaale ahaan saaka telefon baa lai soo diray ninkaasi waa masaajidda kitaabtii buu noo soo iibin jiray bay ku leeyihin kitaabtii buu noo soo iibiyey generator buu noo soo gaday masaajid dhan buu install gareeyey baa lagu leeyahay waan soo dhaweynaynaa guud ahaan isbeddellada ka socda dalka wada Dr. Abiy gaar ahaan deegaankeenna madaxweyne Mustafa isbeddelladana bilaabay magacaabis waan soo dhaweynaynaa si guud ahaan si gaar ahaan si degdeg ah loo habeeyey ciidanka gaarka ah ciidanka ahliyada gaarka la habeeyey waa arrin aan soo dhaweynayn oo faraxsanahay sida magaalo ku jirtana shakhsiga loo doortay taliyaha booliska waa nin ammaantiisa magaalada gashay oo lagu tilmaamay inuu yahay waxgarada nin iimaan leh nin degan u yahay dadku wax badan bay dareemi jireen dib u curashadii baa dhibaato badan keentay dib u curashadu hal dib u curasheeyo laakiin jawaabtii laga rabay ma ayna bixinin dib u curashadu jawaabtii laga rabay ee loo sameeyey ma ayna bixinin waxay noqdeen un niman muxuu ahaa dana gaara oo macnaha intay meesha ka shaqaystaan iska tago may noqdeen marka duqa magaalada dadka magaalada hadduu dhibaato geysto iyo hadduu wax walba geysto calaamad ka foqaysa maaha goordhow waa lagu qiimaynoo dadkiisaa ku qiimaynoo shalay baad waxaa samaysan baa loodhan isagoo taa micnaha ka duulaya isagana waxaan faraynaa inuu cadaalad la dareemo oo magaaladan waa magaaladii caasimadda ahayd bulsho fara badan intii oo gobol ahayd ee 12 gobol baa meesha jooga inay dadku ay macnaha kulligood ay ku naaloodaan ayaa loo baahan yahay oo nin u qalmo uu noqdo macnaha isbeddelka laftiisa anu waxaan u arkaa qof walba meeshuu degan yahay horta wuu fahmi karaa dadku dhex degan yahay bay'ada uu ku koray dadka wuu maamuli karaa laakiin nidaamka dib u curashadu qof kale oo waxa weeyaan meel halkaas jooga oo magaalo kale jooga qofkii aan u dhalanin isma fahmayaan waxyaabaha dib u curashada ay ku fashilantayna waxaa ka mid ahaa isfahan waa ka dhex yimid dadkii la dib u curasheeyey iyo dadkii shacabka degmooyinka ama gobollada kale ku sugnaa marka anu waxaan dhihi karaa maayirka maamulka magaalada Jigjiga maadaama magaalada Jigjiga u dhashay wuu fahmi karaa shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo dadka jooga magaalada Jigjiga uu aad iyo aad u fahmi karaa shaqadana uu ka soo bixi karaa baan aaminsanahay waxaan filaynaa in dib u curashaha laga noqdo laakiin dadka la keenayo xelalka la keenayo hogaaminta ee dadka u adeegaya ee dhaqaajinaya hay'adaha adeegga bixiya dawladdu inay noqdaan dad aqoon leh karti leh dadnimo leh sumcad leh aan lahayn in jeclaysi aan lahayn aqoon yaraan aan lagu tuhmaynin hufnaan iyo cadcadaan leh wixii lagu dooranayay hoggaan buuxinaya kursigun baa isbedelay waxa weeyaan bulshadii loo adeegaya dadkii waa joogaan marka xukunkaa isbedelay dadkaa la keenay waxaan farayaa in ay hawshaa loo igmaday ee loo doortay in ay halkii hore ay taagneen intay ka sii qaadaan dadka dhibaatadii haysatay iyo dulmigii iyo mataqaanaa jeclaysigii waxaan inta laga baxo in ay bulshada aragti cusub ay u keenaan oo ay si fiican ugu shaqeeyaan khusuusan ninka magaalada duqa loo doortay magaalada Jigjiga wuu ku dhashay wuuna yaqaanaa waana aqoon-yahan waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono haddana bulshadii dhalinyarta waxbarashada waxaan kala arkaynaa nidaamkiina ragaadiya dib u curashada inuu meesha ka baxayo waa dadkii deegaanka ahaa ahmiyadda la siiyo oo muxuu ahaa lahaansho la dareemo oo asaga inuu soo dhiso guud ahaan nidaamkii uu soo habeeyo oo qabale ilaa iyo maayarka xafiiska nabadgelyo laga shaqeeyo oo xafiisyada dawladda la soo celiyo waa nidaam aan aad soo dhaweyn oo faraxsan horta dib u curashadu si way u fiican tahay waxay u fiican tahay isdhexgalka bulshada u fiican tahay laakiin hadda sidii saxda loo macnaha loogu dhaqmo way fiicnaan lahayd laakiin si qalloocda ayaa eega loogu dhaqmaa waayo dadkii waxayna noqdeen dad qabiil ku dhahan bay noqdeen kana reehebala iyo kana reehebala iyo kana reehebala horta shaqadiisu bedeshay
laakiin waxaa ku fiican isbeddelka haddii la muujinayo dib u curashada sidii saxda ahayd in loo isticmaalo oo la iska guur Soomaalidu way isdhex gashaa kulan bay sameeyaan guur bay sameeyaan waxyaabo fara badan bay isu soo dhex galaan laakiin haddii loo isticmaalo dib u curashada sidii saxda loo isticmaalo dib u curashadaas way fiican tahay dhihi karnaa laakiin hadda sidii khaldan loo isticmaalo dib u curasho sax ma noqonayso waxay noqonaysaa tul isku baromagaadheeyo tul isku aflagaadeeyo tul qabiil la isku saaro waxaasay noqonaysaa marka waxaan leeyahay isbeddelkan cusub ee deegaanka Soomaalida ka bilaabmay waa midaan aad ugu qanacsanahay ciidanku waxaan farayaa sida taliyihii hore Shan Cabdiraxmaan uga amar qaadan jiray looga amar qaato waxaan kaloo farayaa mas'uulka cusub la magacaabay iyo madaxweynaha iyo guud ahaan ciidanka in la maamuuso la sharfo shanankii hore Shan Cabdiraxmaan laba gole shaqo weyn buu qabtay inaan dadaalkiisii aan la xaqirin oo muxuu ahaa la amaano oo la sharfo sida Samoro Itoobiya sharaftay loo sharfo la soo dhaweeyo oo shacabkiisu ka mid ahaado oo wali talaba ka sii qaato taliyaha cusubna waxaan ilaah uga rajeynayaa inuu noqdo mid muxuu ahaa kaba shacab noqdo oo shacabku u adeego oo si hufan u adeega waxaan dhihi lahaa marka ciidanka liyu boolisku waa ciidan shacab weeyaan waa ciidan dawladeed waxaa loo baahan yahay inay la jaan qaadaan isbeddel walba oo deegaanka ama dalka ka dhaca waayo dee shacabka iyo iyagu waxa weeyaan shacabka iyagu ay adeegayaan maadaama shacabku adeegayaan daan waxaan dhihi lahaa shacabkii wuu joogaa deegaankii wuu joogaa dalkii wuu joogaa isbeddelka maanta marka ka dhacay dalka iyo deegaankaba inay la jaan qaadaan ayaan doonaynaa waana soo dhawaynaynaa isbeddel ka dhacay waxaan leeyahay muxuu ahaa ciidamada gaarkiihi iyo hay-adaha amniga ee deegaanku ma aha hay-ado si gooniya loo leeyahay oo cid gaari haylada waa hay-ado ay leeyihiin ay leedahay ummadda deegaanka Soomaalida isbeddelku wuu imanayaa cid isbeddelaysaa waa hoggaanka laakiin bulshadu isma beddesho dalkoodii iyo dadkoodii isma beddelin waxaan leenahay hay-aduhu amnigu halkii hore ee muxuu ahaa adeeggii hore ee ummadda siinayseen waa maantana laydinka baahan yahay adeeggii hore ee siinayseen inaad ka sii siyaadisaan oo sii tayaysaan mooye idinkama filayno inaad muxuu ahaa isbeddel uu imanayo oo gaabis uu imanayo ciidamada new booliska isbeddelkoodu waa isbeddelka waddanka ka dhacay mid macnaha qof ku saabsanna ma aha mid macnaha dana gaara laga leeyahayna ma aha ciidan kastana waa la beddelaa Samora la beddelay marka haddii Samora la beddelay oo Geetaajo 27 sano jooga la beddelay muxuu ahaa Cabdiraxmaan jananka in la beddelo kuwa kale la beddelay say laftiisu hawsha waa mas'uuliyad u baahay taana taasaan leenahay ciidamada new booliska ha u diyaar garoobaan shacabkooda say ugu shaqayn jireen laba laabkeed iyo saddex laabkeed waa in ugu diyaar garoobaan waayo shacabka iyagu ay ka dhasheen madaxweynihii hore wuxuu odhan jiray kabihii shacabka weyn kabihii shacabka inay yihiin inay caddaato loo baahan yahay waxaan farayaa dhammaan ciidanka liyu booliska iyo booliska madhabanyaha boolis in ay dirayska waxay u xidhan yihiin waa ummaddooda qoriga waxay u wataan waa shacabkooda inay difaacaan sharciga dastuurka waddanka inay difaacaan dirayska iyo qoriga loo dhiibay iyo mushaharka uu qaadanayo ma aha mid shakhsi uu bixinayo maaha mid reer oo u xidhana maaha waa mid ummaddiisa uu ku difaacayo weeyaan xadadka inay difaacaan ciidanka liyu boolisku nabadgelyada dhan walba inay mataqaanaa shacabkooda ay difaacaan dad baa le haddii hebel shaqada waxaasaan yeeli ama shaqayn mayno oo ummaddaada war ummaddaada war hooyadaabaad u xidhnay diriiska inaad ku difaacdadee shaksi maadan u xidhnayn diriiska marka bulshadiina waa halkeedii bulshadii wax iska dhimi ma jiro tala ahaan aniga ka maxamed ahaan ma ihi qof siyaasiya laakiin waxaana dhalinyarta ku dhexnool magaalada Jigjiga waxaan u soo gudbin lahaa xukuumadda cusub inay tallaabooyinkay qaadayso markasta ku beeskaraysnaayaan yacni ay ku eegto marxalad kasta oo ku habboon sidii loo dhaqaajinayo liyu boolisku waa ciidan dawladeed weeyaan system dawladeed adarjaajad dawladeed bay ku dhisan yihiin nidaam dawladeedna way ku dhisan yihiin ilaa heer federaal iyo ilaa heer deegaanba ah sidaa daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa dadyawga isla dhex maraya hadallada ciidanka liyu boolisku shacabka yimatalayaan shacabka ka dhex yimaadeen
dadkan halkan jooga ee deegaan ku dhaqan waa shacabkoodii weeyaan waxay u adeegayeen ciidanka liyu booliska waxay ahayn shacabkoodii ciidanka liyu booliskana waxaan baaq ugu darayaa inay la jaan qaadaan isbeddelka dawladnimo ee cadaaladda ku salaysan ee deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaanka Soomaalida ka hana qaaday kulan wada tashi ah oo ay yeesheen saraakiisha booliska deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga warbixin umuurtan ku saabsan wariyaheena Mustafa Yuusuf ayaa faahfaahinaya kulankan wada tashiga ee komishineerka komishinka booliska dawladdeegaanka Soomaalida Radaad Komishineer Maxamed Cali Xasan oo la qaatay saraakiisha sare ee ciidamada booliska deegaanka ayaa waxay ahmiyadda kulankan wada tashiga u ahaa si dardargelinta hawlaha amni sugidda iyo sidii ciidamada boolisku ay u sii xoojin lahaayeen hawlaha iyo dadaalada wax laga qabanayay saameynta ka dhalatay dhibaatadii ka dhacday deegaanka loona soo celin lahaa hantida la boobay sharcigana loola tiigsan lahaa dadka gacanta ku lahaa dhibaatooyinkaasi iyadoo la isla kaashanayo hay'adaha kala duwan ee amniga waana kan komishineerka komishinka booliska dawladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Radaad Komishineer Maxamed Cali Xasan oo ka hadlay furitaankii kulankan wada tashiga inaan shaqadii dardar gelino inagoo bulshadeena gacanta ku hayno oo dejinayna bulshada waqti dhibaatooyin badan baa dhacay hanti baa la boobay dad baa ku dhintay weli dadkii meelahoodii way kala joogaan dhibaatooyin badan bay cabasho badan bay tabanayaan nina inuu ka aragoosanin laakiin nidaamka cadaaladda iyo ruuxa loo mariyo in sharciga la waafajiyo xoog badan inaad soo ururisaan dadkii hantida boobay saad imika shaqadaada ugu jirteen marka inaan systemkan aan la jaaqaadno aan shaqeyno xorriyadda qolkii waa la fasaxay cid hadda la caburnayaa ma jiro marka bulshadeena inagoo dejinayna inagoo nidaamkan hadda iyo ahdaafta la qaatay ee iscafiska inagoo ka faa'iidaysanayna oo ku shaqeynayna waxaa loo baahan yahay inaad bulshada idinku laftiina ka dhaadhicisaan dhankooda xubnaha saraakiisha booliska ee ka qayb galay kulankani wada tashiga ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen waajibaadka saaran ee dhanka amni sugidda maadaama hogaamintii sare ee boolisku isbedeshay dardargelintii shaqada hanti soo celintii amniga xasil ilaalinteeda ayaanu ka shirinay bay ahayd waxa weeye cid kastoo dambi geysatay sharciga in la hor keeno iyadoon lagu xadgudbayn iyadoon si dhibaataa lagu samaynayn nin kasta cidduu dooni muu ahaado in sharciga la hor keeno ayaanu isla qaadanay waxaa jirta shalay waxaa la kala bedelay mas'uuliyiin xagga ciidanka liyuga iyo xagga mataqaanaa booliskaba booliska meesha cusub baa la magacaabay waxaanu hadda shirkii aan ka soo baxay ku go'aansanay in wixii hanti ahaa ee la dhacay la soo celiyo wixii la helo hantidii dawladda xataa mataqaanaa gaadiidkii dawladda iyo hantidii dawladda laftooda waa la bilaqaystay tu shacabun maahan wixii la dhacay boolisku marka goob kasta ama gobol ha noqoto ama degmo ha noqoto ama heer deegaan ha noqoto in hantidii dawladda iyo tii bulshada laga dhacay intaba wixii la qaban kara gacantii dawladda deegaanka gacantii shacabka iyo deegaankaba lagu soo celiyo ayaan go'aansanay deegaankeena sida la socotaanba dhibaato aad u ballaaran baa ka dhacday booliska deegaanka badi wuu xareysnaa oo muddo 5 bilooda wuxuu ku xareysnaa garab case wax yar baa ka joogay magaalada gudaheeda dhibaatooyinkii dhacday annagu haddii aan nahay boolis horta aad baan uga xunnaa waxaan rajaynaynaa dhammaan wixii maaragtay dambiilaha ee dambigan geystay inaan gacanta ku soo dhigi doonno oo mar dhow aan sharciga horgeyn doonno annagu waxaa weeye boolisku waxaa weeye horta inuu nabadgelyada ka shaqeeyo weeye oo shacibka uu nabad ku baxo oo nabad ku soo galo arrinta meesha ka dhacday dawlad deegaankeena ku dhacday aad baan boqolkiiba boqol uga xunnahay marka hore waan uga tacsiyeenaa intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Allah bogsiiyo kadib intii waxa ka dambeeyay shaqooyinkii boolisku lahaa ayaanu hoos u galnay qabalayada la kala qoray ama maxaan ku rahaa xaafadaha magaalada hantida inta badan waanu soo celinay hadday baabuur tahay hadday bashaar tahay hadday hanti kala tahay waxaan leenahay halka waan ka sii wadaynaa qorshaha ay maanta aanu galay shirkan galayna lagu siiyay wuxuu ahaa inaanu adkayno nabadgelyada dhacdooyinkii dhacay dhibkii ka dhacay magaaladana hantidii iyo shacabkii dadkii dambiyada galay sharciga lagu soo dhaweeyay hanti badanna waanu soo celinay dambiilayaashina kuwa badan baanu raadkooda haynaa kuwana gacantaan ku dhignay marka waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno qorshayaasha dawladda cusub iyo jaanjigan cusub u keenay annagoo boolis aan nahay boolisna uunan ahayn wax maamul iyo shakhsi midna ah dawlad kasta oo timaada iyo xukuumad kasta oo timaada xoog la shaqeynaya aan nahay sidaa darteed qorshayaashuna siiyay komishineerka naga cusub waxa weeyaan in dambiyadii dhacayna la daba galo
hadda kadibna ayna dambi dhicin shacabkana hantidiisii dib loo soo celiyo kuwii dhacayna la keeno sharciga sidaa darteed annaguna qorshahaasaan qaadanay isbeddelkan iyo komisharka cusubna waan soo dhaweynay amar wuxuu nagu siiyey in magaalada la galo in cadaymihii la raadiyo in sida ugu dhaqso badan dadka dambiilayaasha ay dadka dhacay dadka laayay sharciga la hor keeno xukuumadda dhammaan Itoobiya dhan isbeddelka ka dhacay annagana maartay aan ka mid nahay maadaama Itoobiya nahay madaxweynaha cusub iyo maartay amarku bixiyay iyo komisharka cusubba annaga waxa weeye in aan maartay hawlgal adag sameeyno in aan magaalada dambiilayaasha aan gacanta soo dhigno way oo shacabkan maanta horgeyno sharciga horgeyno maantana waxaan ilaahay mahadiya mar haddii xukuumadda noo dhisay madaxweynaha waan ku diirsanay gudoomiyaha xisbigana waan ku diirsanay dhammaan komishinkayagana amar maanta wuxuu nagu siiyey shirka maanta aan galnay in wixii qalaasahan ka dambeeyey sida ugu dhaqsaha badan sharciga lagu soo dhaweeyo taasina waxay caddaynaysaa in ninkii dembi galaba la iskaga daba tagi doono shacabka dawladdeegaankana waxaan faraynaa marka hore inay isdejiyaan lana shaqeeyaan booliska wixii waxaan dhibaatada geystayna waa laga daba tegi doonaa nin kastoo hanti ka maqan tahay ama nin kastoo dhibaato soo gaadhay waxaan leenahay sida sharciga ah u soo dacwoodo iyuuna gacantiisa sharci ku qaadan dhalinyarta gobolka Liibaan ayaa soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee deegaanka Soomaalida warbixintan waxa inoo soo diray Aadan Maxamed shirkan oo ay soo agaasimeen aqoon-yahaniinta degmada Filto ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada odayaasha iyo hooyooyinka ku dhaqan degmada Filto waxayna si ballaaran u soo dhaweeyeen isbeddelka maanta ka curtay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ugu horeyntii shirkaasi ka hadlay Idris Mukhtaar oo ah aqoon-yahaniinta degmada Filto ee gobolka Liibaan isagoo u sheegay bulshada inay ilaashadaan nabadgelyada ay maanta haystaan aadna u soo madaxweynaha cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide ajandoodan aan kugu yeernay oo ugu muhiimsan maanta isku kin yeernay waa laba ajando ugu horeyn soo dhaweynayna madaxweynaha cusub ee deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga mudane Axmed Shide waxa kale oo soo dhaweynaynaa systemka wanaagsan ee ka hana qaaday dalkeena Itoobiya gaar ahaan deegaankeena markay ajandahaas aan ka soo gudbo waxaan mahad celin ballaaran oo sharaf ku dheehan tahay u celinaya dhalinyarta gobolka Liibaan goobka soo joogaanba sida sharafta lahayd ee ay ugu hortageen iyadoo cid iskugu yeertay ee cid mataqaan qabanqaabis aysan jirin iskood ay ugu hortageen dhibaatooyinkii ka jiray deegaanka sidaa darteed waxaan dareemayaa farxad aad u weyn ee ay dadka mataqaan gobolkan u dhashay dal iyo dibad meel ay joogaanba lagu faani karo inay soo hoyeen dhalinyarta ku nool gobolka Liibaan waxaa leedankaga baahan yahay ama dhammaanteen nagula baahan haddii aan dhalinyaranaanay كلي وقامتنا كلها سيد دقن كوبر كسرها كلي واسكدومنا شدني يوم تقنا ويجرتا اسكدومنا شو جوده من نمنا وصومالي نمي توبين نمنا موجنا متقنا يسبدل كان سود وين كل والله سعوتان أما أدرتين وددا وين واسكحرتين نجي إلا دولادو دبعت وين وكجرتا وما تجديد أي مر ليهن حل الرباط كان أي بكسي درنتاي وددا أي دبتي كل واد كتير وعد ما تأنركن ملها تاسنا وحي صفت إن غاليه قبلك يدقمد جارهامبا وهوس وديو marka wadooyinkaas wadaxumadaas dhibaatadan haysta ay ka mid tahay gobolka waxa kale oo jirta dhanka korontada oo kale dhibaato aad weyn baa ka jirta waxa la socotaan muddo 3 bilood inaan daba taaganahay korontadii oo maartii ilaa hadda aan saxlanahay waxa ugu dambeysay maanta shalay daraad toddobaadkan oo dhan ilaa 3 bilood guud ahaanba waan daba taagneen ilaa hadda ma taqaana wax noo suuragal ma aan arkin taana dhibaatooyinku waaweyn ayay ka mid tahay shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay horumarka nabadgelyada iyo sinaanta isxushmeynta wada noolaanshaha intaba inay ka wada qayb qaataan sida ogtihiinba bulshada caalamka ama bulshada maarata gobolkaba boqolkiiba waxaa la 75 waa dhalinyaro sidaa darteed horumarka iyo nabadgelyada waxaa keeni kara waxaa horseedi kara dhalinyarada gobolka Liibaan waxaan ugu baaqaynaa inay gacmaha isqabsadaan isku duubnaadaan ay sameystaan horumarkooda iyo waxtarkooda aysan ciidan ka sugin baan ugu baaqaynaa markii mid koobaad mid labaad
anagoo soo dhaweynayna madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga kulley waxaan ku ammaani doonaa waxay noo qabtaan baan ku ammaani doonaa shakhsiyadiisa anigu ma naqaano wuxuu noola yimaado ama wuxuu noo qabto baan ku ammaani doonaa ammaan waa noo dambaysaa bal waxaan leenahay waxaa ku sugayo gobollo badan oo zero ah dhan walba weliga nin wasiir oo wasiir oo dawladda federaalka dawladda ku jira kililka oo wasiir oo ku jira meeshi oo ganacsi haysta oo LC ka shaqeysana oo sokorta wata oo bariiska wata oo baasada wata oo calalay wata annaga ma arko markaa haddii aan dhan baradho waxaan ka qaadanaan weyn gabarta hebla ana warqad soo gooya lagu leeyahay warqaday wadataa gabadha ay wadato waxay leedahay warqaday wadataa warqada ay wadato waa qof shakhsi waa kooyda wadanku ma dhalan madaxweynaha waxaan u sheegaynaa haddii aad elsiga sidiisii aad isaga qaadan doono jaadka la galay jaadka shakhsiyan waxayna haysaa dad shakhsiyan lagu siiyo leeyahay aqoona lagu korna war meeqa aqoona nitactuur meeqan eberna meeqan baasan ma faham jaadki lagu aqoona lagu korna warkii